عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu ka doodi doonaa ama aynu noogu sii socon doonaa cashirkeennii taxanaha ahaa qaybtii noogu dambeysay. markaynu soo tilmaamnay selling brain-kii wuxuu ahaa soo baranay iyo wuxuu ka samaysnaa habkay selling brain-ka wax u soo galaan transport across selling brain anagii soo aragnay. anaga saddex usoo kala qiimo jirnay active iyo passive iyo kan ugu dambeeya ahaa fascicular transport. labada hab ee hore passive iyo active ka aynu odhanay labada badanaa la adeegsaday weeyaan aynu soo qaadanay. haddaba habkan isagu iska minorka ee mataqaanaa kulli badanka la soo geliyo mataqaanaa active-ka muxuu noqon doonaa. hadaba fascicular transport weeyaan. fascicular transport muxuu yahay? waa qayb ka mid ah horta transport-ka habka jirka mataqaanaa wax u soo galaan wax nooga baxaa waa qayb ka mid ah. waxaana isaga kaliya loo isticmaalaa large substances ashyaalaha waaweyn si jirka usoo geli lahayn baa loogu isticmaalaa baa lagu yiri. waqtiyada qaarkood waxaa lagu yiri jirkeenu uu baahan yahay inay waxyaalo weyn soo galaan sababtoo ah mataqaanaa dee jirkeenu waa mid u baahan si uu ku noolaan lahaa ama ku jiri lahaa wax kasta oo wanaagsan soo ma marka ugu wanaagsan taan la yiri mataqaanaa habkan loo yaqaano fascicular transport ama large substances ka jirka soo galaan muhiimsan taa lagu yiri. okay markaynu ka hadlayno fascicular transport mataqaanaa saddex habun baa u caana oo jirka wax u soo galaan. hab loo yaqaano endocytosis, exocytosis iyo transcytosis. saddexdaa hab waa saddexda hab ee mataqaanaa ugu caansan habkan fascicular transport ama wax u soo galaan jirka wax nooga baxaan. haddaba mixid dul taagno muxuu ka dhigayaa endocytosis. endo means waa mataqaanaa gudihiisa ma marka waxay noqonaysaa habka ay jirka wax u soo galaan only. exocytosis marka leenahayna exo maxay tahay dibadda soo ma exocytosis habka ay mataqaanaa jirkii wax uga baxayaan ee large substances weeyaan waliba. iyo transcytosis oo ah habka jirka wax u soo galayaan wax nooga baxayaan haddana u soo galayaan haddana uga baxayaan waa cycle oo la wareegto weeyaan taas. mid kasta dul taagi doonaa insha Allah. ta ugu horeyso endocytosis ah bal muhiimadda ay saarnaa ama waxay tahay inuu mataqaanaa iyadan iyo dul istaagno. san hore u soo sheegnay mataqaanaa waa transport substances into the cell waa habka ay jirka mataqaanaa wax u soo galaan endocytosis kan iyo noqonaya isaga caadi ahaan waxaa loo kala qaybiyaa saddex qaybood iyaga noo si kala fasiri doona phagocytosis, pinocytosis iyo receptor mediator endocytosis. mid kastaba waxaan rajeynayaa inaynu isdul taagno waxay tahay waxay ka fasirayso waxay nooga tilmaamayso markasta mataqaanaa aynu ogaano. haddaynu ku horeysiino ka ugu horeeya oo ah phagocytosis wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa caadi ahaan waxaa la yidhi phagocytosiskan waxaa loo yaqaanaa cell eating. habkee buu jirkeena marka ay wax soo galaan ama mataqaanaa foreign substances ama wax jirkeena u arka jirkeenu wax foreign wax dibadda kaga yimiday oo ku keeni kara jirkeennii khatar habka uu shaqeynaya physiologicalka jirka uu shaqeynaya waxyeelaya waa habkan mataqaanaa badanaa ayaa loo yaqaanaa phagocytosis waana cell eating habka uu jirku uga mataqaanaa dhex cuno wixii foreign soo galay noqonaysaa. waad aragtaan sawirkaas particleskaas iminka baalka particle-ka markaysa akhtarka ugu jira qaybtaas mataqaanaa wareegsan habka u soo galayso weeyaan phagocytosis ka dhigan tahay iyadoona sii qeexi doono sii dhexgeli doono mid kasta waxay tahay ogaan doono. processka ay mataqaanaa dark cells baa la yidhaha metabolites kal oo xaaqa wax mataqaanaa loo dilo weeyaan. phagocytosis ka dhowto inuu kala bixi doonaa mataqaanaa qaybo fara badan u yeelan doonaa. it common only waa ugu caansan baa lagu yiri immune cells oo immune cells ka qayb qaata phagocytosis marka laga hadlayo. immune cells waxay noqon karaan neutrophils, monocytes iyo macrophages kuwaas oo mataqaanaa habkan immune-ka jirkeena ku dhex jira ama habkaynu wax isaga daafici karno antibody-geena weeyaan ayay noqonaysaa markaas jirkeena ula dagaalamayo wixii mataqaanaa microorganism jirkeena khatar ku keeni kara ayaa la odhanayaa phagocytosis iyadoo ay soo galayaan qaybahaas aynu soo sheegnay neutrophil, monocytes iyo macrophages. waxaa loo isticmaalaa defense the body jirku inuu iska mataqaanaa daafaco waata tani sheegay
inuu iska daafaco soo weerarka microorganismka. Microorganism waxay doonaan mid noqon karaan bacteria, noqon karaan fungi, virus, waxa kasta noqon kara. Habkaas ayaa la odhanayaa phagocytosis. Okay, hadaan ka socono waxay la taxalluqdaa baa lagu yiri iyadoo isku fidinaysa expression ku sameynaysa lagu yiri from cell large fold burst sameynaysa baa lagu say u dili lahayd wax. Habkan loo yaqaano phagocytosis waxay sameynaysaa wax folds oo kala eeg oo pseudopoda la yiraahdo. Pseudopoda muxuu yahay quadrata ma filaya kulley foldska ama taqaanay labka wareega waxa ku dhex jira particles akhtara oo habkay jirku soo galiyaan marka wuxuu sameysanayaa pseudopodahaas. Markaas wixii baa soo dhex galaya oo la doonayo particleskiiba oo baa loo soo waxaynaya soo particles u socdo dibadda la isku soo xoraya la isku soo xeeraya oo sawirka hoostooda aragtay fake baa loo sameynaya kaasa taqaana wixii laga dhigay in gudaha soo dhex galaan. Habkaas ayaa laga takhalusaya ama wixii mataqaana particles jirkeena soo gala dadkaas oo lagu yiri engulfing lagu sameynayo la soo xoodaaminayo ama la soo xareereynayo mataqaana microorganismka ama wixii jirka soo galay bacteria wax kala ahaato waliba mataqaana internalized this material waliba gudaha sal ugu dhex dhacaya gudaha salkaana mataqaana laga fulinayo lagu yiri processka waa exocytosis baynu ka hadlaynaa ilaan sababa marka habkaas la odhanayaa san hore ugu soo sheegnay macrophages mataqaana haddaba mataqaana white blood cellska ayaa san hore u soo sheegnay immune cellska ahaa isagoo badan adeegsaday oo badanaa mataqaana ay ku dhacaan habkan loo yaqaano phagocytosis. Phagocytosis waa hab aad u muhiimsan oo kulli mataqaana caafimaadka aad ugu muhiimsan qof kasta u yaqaano qof kasta caafimaad baranaya qofkii kale kulli hab aad u muhiim habka ay jirku ku dilayaan wixii soo galay foreign substance. Hadaynu ka socono phagocytosis saddexdan hab ayaga soo galay recognition and attachment la aqoonsado wixii markii la aqoonsado engulfing ku soo sameyno san hore ugu soo sheegnay marka engulfing lagu sameeyo wixii la isku soo xeero waa la dilayaa kaliin baa lagu sameeyaa. Recognition oo ah in mataqaana wixii la aqoonsado bacteria noocay tahay wala imanaya qaar baa imanaya dhultaan dibaan oo kaga aan dhigan doonaa wala imanaya bacteria wixii ama mataqaana soo gal jirka koobi laga qaadanaya marka la ogaado shaybkeeda qaabkeeda wixii ku dhan ayaa loo sameysanayaa mataqaana si la isaga daafici lahaa kadib engulfing baa lagu sameynayaa iyadoo la garanayo shaybkeedii waxay tahay ciidamada loo diyaarinayo la garanayo ayaa dibeetana kaliin lagu adeegsanaya habka jirku ku dilay phagocytosis. hadaan hore socdo qodobka ugu horeeya recognition and attachment habka loo aqoonsanayo mataqaana bacteriadii si jirku soo galayd marka la aqoonsado la dilayaa soo ma habkan daba la aqoonsanaya recognition and attachment maxay ka dhigan tahay oo processka lagu identify garayo lagu aqoonsado ama lagu garto calaamad looga dhigo microorganismka intuu jirkeena soo galin ba marka jirkeena saa u soo argala waliba wax mataqaana qalad uu sameeyay wali ayaa wax la isku dayayaa in mataqaana immune cellskeena ilaahay nagu abuuray mataqaana heeganka waqti kasti ayaa waxa isku dayayaan isla markii yimaadaan wixii mataqaana foreign substance meeshii midaan particles yimid waxa isku dayayaan inay wax ka qabtaan san hore ugu soo sheegnay recognition and attachment ku sameeyaan way wixii gartaan dibadana engulfing dibadana kaliin hadda habkan ugu horeeya waa recognition isagoo mataqaana aqoonsanayeen isoo sheegeen phagocytosis wixii soo galay jirka. Okay ka hor baa lagu yiri white blood cells waxa aqoonsanaya microorganismka soo ku sameeyay opsonization marker bay ka dhigan tahay su'aashaas opsonization buu ku sameeyay ama ayo marker uu goobanaya wixii markuu goobto dhanka soo baa laga qaaday markaas loo eega markaas sawirka laga wada qaado mataqaana shaybkeeda san hore soo sheegnay qaabkeeda iyo waxyaad particleski saa loo ogaado ayaa la geenayaa dib oo la oranayaa waxaas iyo qaabkeeda weeyaan waxa maanaysanaa ciidankaas la doonaya saas dib la soo weeraray wixii particles la soo weeraray microorganism la soo weeraray oo loo soo weeraray waa hab aad iyo aad u cajiib wallahi markaas aad eegto ilaahay jirkeena ku abuuray subhanahu wa ta'ala hadana ka socono the best opsonization is
hababka markerka ugu caansan ama hababkan mataqaana wax la isku soo xirayo lagu mataqaana ogaanayo wixii soo galay jirka. Opsonization saro soo sheegno marker soma saddexdan haba mataqaana oo jirkeena ku dhex jira oo mataqaana oo ka qayb qaata mataqaana markerka. Habka loo yaqaano IgG iyo CB3 iyo mataqaana carbohydrate lactin qayb ka mid ah mataqaana opsonizationkan kuwaas oo markasta ku taxadira ma sameeyo opsonizationkan oo ah habka ugu horeeya ay soo sheegeen recognition attachment. Inta la sameeyo yaa la isku dayayaa in mataqaana salkii sida ugu dhaqsiyaha badan lagaga takhaluso iyadoo laba hab ka dambeeyaan engulfing iyo sidoo kale san hore soo sheegnay killinkii loo diriyay habka jirka looga saarayay. cashirkeenu maanta insha Allah intaas uu inagu egyahay. aad baad u mahadsantihiin insha Allah inoo toddobaadka dambe iyo kulanti dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.